waa maxay sababta 20 sarkaal oo isugu jira generaal gaashaanle dhexe iyo gaashaanle saraba loo dilay wax ka yar sanad iyo bar kuwaas oo isugu jira police iyo military ma qorshe gaar ah ayaa jira maxay tahay waxa howlgalka dalka ka bilowday sanad iyo bar ka hor ka bedelay howlgaladii hore ee dalka looga saaray kooxda al-shabaab haddaba waxaan warbixintan kugula wadaagayaa howlgaladii hore ee dalka looga saaray magaalooyinkii laga saaray iyo tirada saraakiisha geeriyootay iyo iminka meelaha laga saaray iyo tirada saraakiisha geeriyootay iyo waxa u sababa leynta saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sanad iyo bar ka hor waxay ku dhawaaqday dagaalka dhan ah kooxda argagixisada ah ee al-shabaab dagaalkaasi kooxda waxa looga saaray dhul ballaaran oo u badan deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle hase yeeshee dagaalkan waxa uu noqday kii ugu badnaa ee lagu laayo saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa ka tirsan booliiska Soomaaliya waxa la diray saraakiil isugu jira generaalo gaashaanle dhexe iyo sidoo kale gaashaanle sare intaba saraakiishaasi dadka ugu magaca weyn ee aan xusi karno waxa kamid ah generaal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole taliyihii booliiska gobolka Banaadir gaashaanle Xasan Tuure taliye ku-xigeenkii ciidanka commandoska Soomaaliya ee Danab Cornel Shataqay taliye guuto oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Cornel Shaah Macabe taliye guuto oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Cabdi Sulnuge abaanduule guuto oo ka tirsan ciidanka Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya Bakaal Kooke taliyihii nabad sugidda ee gobolka Gado iyo taliye ku-xigeenkii ciidanka police military Liibaan Golcad oo isna shalay oo u dambeysay lagu dilay gobolka Shabeellada Hoose waxa jira saraakiil kale oo tiro badan oo magacyadooda iyo darajooyinkooda aanan anigu iminka haynin kuwaas oo sanad iyo barkii la soo dhaafay lagu dilay howlgallada ka socda dalka ee looga saarayo kooxda al-shabaab haddaba maxaa howlgalkan ka duwa kuwii hore sida aan la soconno dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddaxileedkeedii hore ee 2012 ilaa 2017 dalka waxa laga saaray al-shabaab magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobolada Baay, Bakool, Shabeellada Hoose, Hiiraan, Shabeellada Dhexe, Mudug iyo Galgaduud dhul ballaaran ayaa muddaxileedkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee teeramkii hore sidaas oo kale laga saaray al-shabaab magaalooyinka waaweyn ee waqtigaasi shabaab laga saaray waxa kamid ah oo aan xusi karno Jowhar, Baraawe, Baydhabo, Xudur, Buulo Burde, Jalalaqsi, Cadale, Warsheekh, Walaweyn iyo magaalooyin kale oo aad u tiro badan oo dalka kamid ah haddaba dhulkaas ballaaran ee goboladaas iyo magaalooyinkaasi tirada badan ee aan idin la wadaagay dhamaantood markii laga saaray al-shabaab intaanu sarkaal kuma aanay geeriyoonin haddaba waa maxay sababta howlgalkan saraakiisha loogu leynayo khubarada ammaanku waxay aaminsan yihiin in al-shabaab ay ka bedeleen marka koobaad wax badan taatikadoodii dagaalka al-shabaab ayaa markii hore waxay isku dayi jireen inay awood ku hor istaagaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa kaabaya ee ka socda midowga Afrika waqtigaasi waxaana magaalo kasta oo laga saarayay si awooda looga saarayo iyadoo oo meelaha qaar ay dagaal ka dhacayeen hase yeeshee kooxda ayaa iminka bedeshay taatikadeedii waxaanay u bedeshay in magaalooyinka ay ka baxaan bilaa dagaal iyaga oo dib u soo weerarayo xeryaha ciidamada maalmo kadib markii magaalooyinka laga qabsado taas oo la sheegay in saraakiil badan ay ku geeriyoodeen askar badanna lagu dilay sidoo kalena kooxda ay hub iyo gaadiid ay ku qabsatay sababta ugu weyn ayaa lagu aaneynayaa in taatikadii dagaal ee al-shabaab ay wax iska bedeleen dawladda federaalkuna aanay waxna ka baran ilaa iyo iminka muddo sanado ah oo shabaabku hal qaacido ama hal taatiko ay wax weerarayaan taas oo ah in xerada lagu dhufto baabuur walxaa qarxa laga soo buuxiyo kadibna maleeshiya dagaalamaysa ay gudaha u soo galaan hal waqti ayaa la weeraraa ciidanka oo ah inta u dhaxaysa 4 habeenimo ama 10 saac oo habeenimo ilaa 8 subaxnimo ama 2 saac oo subaxnimo 4 saacadood dhexdooda ayay shabaab inta badan waxay geystaan weerarada hal qaacida ayayna sameystaan ilaa iyo iminka saraakiisha ciidanka xoogga dalku waxba ka barlaayihiin oo weerarada ceenkaas oo kala ah oo lagu leynayo saraakiisha iyo askartaba waa la fahmi laaya sababta labaadna waxa la sheegay inay jiraan xubno ka tirsan ciidamada kuwaas oo u basaasa kooxda al-shabaab dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maxkamadda ciidamada dhowr jeer hore horgeysay xubno loo heesto inay la shaqeynayaan al-shabaab oo ugu dambeeyay sarkaal ka tirsan ciidanka Danab sidoo kale waxa jira in deegaanada laga qabsado kooxda inay u joogaan xubno al-shabaab basaasina kuwaas oo warbixinta ciidamada iyo xogta iyo meelaha ka dabacsan yihiin la wadaago askartuna wax kama bartaan sidaas oo kale dhammaan qodobadaas ayaa loo sabaynayaa inay muuqaalkan leeg saaro si share gareey aad u mahadsantiin saaxiibayaal